السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك أصحابي ميل كستو أتجوكتان كسو دوادا برنامج كني أقول ريي مانتو جمعة تاريخنا يكون بيغنتاي تضبي يلاباتن كبشة جون سنة كالبكون يشان يلاباتن هذا برنامج كنا وحين كسو قاعدان دونا ورركي أقوى وينا العي تاني انتينو كلام مغنين وضبط برنامج كان دي كسو قد بنا يوحا كمدا ترام oo doonaya lacag baada inuu ka qaado dawladaha khaliijka hadaba lacagtaas muxuu ku doonayaa inuu ku sameeyo warbixin xiiso leh oo arinka laga qoray ayaynu barnaamijkeedii kula wadaagi doonaa sidoo kale barnaamijkan idinku waaya cadaadiska la saarayo xukuumadda Netanyahu oo sii kordhaya taasoo laga dalbanayo dagaalka Gaza ka socda in la joojiyo haddaba iyadoo arinka laga duulayo ayuu xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu saakay oo Jimcaha wuxuu soo saaray warbixin uu kaga hadlayo arinkaas haddaba Ben Gvir iyo Smotrich oo si toos ah uga hor yimid qorshahaas haddaba arrimahaas iyana waan idin faahfaahin doonaa warka ugu xiisaha badan barnaamijkeena saakay aan idin soo gudbinayno wuxuu noqon doonaa Iran oo la sheegayo inay qorsheynayso qaar ka mid ah warshadaheeda sameeya gantaalaha plastiga iyo waliba droneska inay geyn doonto oo ay ka dhisi doonto Yemen iyadoo Xuutiyiinta ay u gacan gelin doonto haddaba haddii warshadaha halkan qayb ka mid ah la keeno maxaa dhici kara Xuutiga uu sameyn karaa haddaba tafaasiil ku saabsan sheekada iyo waxa ka dhalan kara iyo walaaca laga qabo arinkaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa sidoo kale barnaamijka waxaan ku haynaa Trump oo la kulmay dhawaan madaxweyne Erdogan ayaa aqbalay in uu ka qayb galo kulan Erdogan qabanqaabinayo oo ka dhacaya Turkiga kaasoo la iskugu ballabinayo Putin iyo Zelensky haddaba wararkaas oo kuwa ugu waaweyn caalamka ayaynu maanta barnaamijka ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirnana wixii warar ee soo kordha waan idin la socodsiin doonaa haddaba waxaan idin xusuusinayaa in channelkeena kale ee qisooyinka Nadaara 2 maanta waxay ahayd Jimce waa maalmihii aan qisooyinka soo gelin jirnay haddaba qiso cajiiba ayaa channelkeena ku jirta haddaba dadka qisooyinka aadka u xiiseeya iyaguna way ka bogan karaan qisadan iyo tii talaadadii iyo wixii oo dhan maalin walba talaada iyo maalin walba Jimcaha qisooyinka halka waa ku diyaar halkaas ayaa tagi doontaan haddaba barnaamijka waxaynu u gudbi doonaa xayisiin kadibna waan idin faahfaahin doonaa warbixinada oo dhameystiran Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halka waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halka ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta Jimcaha waxaynu ku bilaabaynaa xaaladaha magaalada Gaza haddaba barnaamijyadeedii hore waxaynu kaga hadlaynay in xaaladdu ay kusoo kululaanayso ninka la yiraahdo Netanyahu Mareykanka dowladaha Yurub cid walba ay cadaadis ku saarayaan inuu dagaalkan Gaza joojiyo oo xal degdeg ah loo helo xabadana la joojiyo haddaba arinkaasu wuxuu u muuqdaa leeyahay iminka mid si wanaagsan ay u aqbaleen Netanyahu iyo raggiisa qaar ka mid ah inkastoo rag kale ay aad u diidan yihiin haddaba qorshaha marka wuxuu isugu jiraa leeyahay dhowr qorshe ayuu isugu jiraa Netanyahu inuu markaa dagaalka joojiyo
arrinkan ku saabsan dowladnimada falastiinna maaragtay hawsheeda la galo, dowlad falastiin ay yeelato, gaza meesha laga qaado, nimankii kataa'ibul qasaam xamaas meesha laga raro oo maaragtay meesha awoodeeda laga wareejiyo. nidaamyo noocaasa oo Trump iyo ay wadaan iyo carabta iyo dad badanaa jira. marka waxaan leeyahay ninkii Netanyahu isaguna culeysyada ugu badan oo haystay dagaalkan uu waday waxaa ka mid ahaa maxkamadda dhibaatada ku haysa ee gudaha uga furan ee loo haysto musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. maxkamadaasna waxaa la sheegayaa Trump ayaa la hadlay, laakiin maxkamaddu waxay leeyihiin hawsha waa wadaynaa, inkastoo la leeyahay cadaadiska Trump uu saarayo maxkamadda inay markaa iyaduna culays kala noqonayso. haddaba marka aan idin tuso xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa saakay war soo saaray. haddaba waxaa leeyahay xafiiska Netanyahu wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay in markaa la galo wada hadallo. Washington Post jaridda la yiraahdo ayaa qortay saakay afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu inuu sheegay waxaynu ogolaanay hindise uu keenay ergeyga Mareykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe Steve Witkoff. waxaana diyaar u nahay inaynu wada hadallada galno. xarakada Xamaas ayuu sheegay inay carqaladeynayso dadaalo kasta oo lagu horumarinayo in la gaaro xabad joojin oo maxaabiistana la isdhaafsado. marka xafiiska ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay ninkii Witkoff ahaa hindiso noo soo gudbiyay, annagu waa ogolnahay in markaa xabad joojin la sameeyo, maxaabiista la isdhaafsado. marka hindisaha wuxuu yahay iyo waxa Israa'iil aqbashay lama yaqaano, laakiin mowqifka Xamaas de waa ogeyn maalin ka hor waxay yiraahdeen annagu waxaanu waxba iskaba bedelin. 3-4 qodob ayaa waxay u yihiin inay aas in xabadda la joojiyo daa'im, Israa'iil inay ka wada baxdo Gaza, in sidoo kale gargaarka iyo howlahan kale la fasaxo oo maaragtay go'doominta in laga qaado, waxyaabo fara badan. marka arrimahaas asal oo ay yiraahdeen arrimahaas oo aan ku jirin wada hadal kasta ma aqbalayno. haddaba markii ay soo baxday marka xanta sheegaysa in Netanyahu xoogaa uu soo jilcay markii Iiraan ay kululaysay, sidii hore maahna le odaga hadda waa wareersan yahay. marka waxaa leeyahay marka nimankii Smotrich iyo Ben Gvir ayaa qayladoodii bilaabay iyaguna maanta. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Ben Gvir iyo Smotrich waxay mucaaradayaan in xabadda la joojiyo oo markaa laga shaqeeyo sidii dowlad Falastiina loo sameyn lahaa. wasiirka amniga gudaha ee Israa'iil iyo midka maaliyadda Itamar Ben Gvir iyo Smotrich ayaa gelinkii dambe ee Khamiista waxay sheegeen inay aad u mucaaradsan yihiin hindisayaasha iyo qorshaha la wado ee lagu joojinayo dagaalka, isla markaana looga shaqeynayo in dowlad Falastiina la helo. marka hawshaasu halkaasay marka maraysaa Gaza arrinteeda. midda kalena waxaa leeyahay askarta qaar ka mid ah Israa'iil waxay qirteen in amar lagu siiyay dadka gargaarka doonanaya inay xabadeeyaan. maalin walba dadka gargaarka doonanaya dada laga laayaa, meeshii gargaarka lama jiro, meeshaas imaada halkaas gargaar lagu bixina, markay tagaan xabada lagu furaa. marka wuxuu yiri askarigaasu amarana lagu siiyay inaan hoos ugu dhigno Falastiiniyiinta. marka taasna waxay noqotay arrin kale oo aad u naxdin badan. waxyaabaha la yaab kale marka ay soo kordhay waxaa ka mid ah Iiraan waxaa leeyahay waxay ku fakaraysaa warshadaheeda sameeya gantaalaha halista badan iyo maaragtay droniska qaarkood inay halkaa geyso Yaman. halkanna way ku haysanaysaa, halkaana waaba loo geenaa. xuutiga dee waa isa soo saareen, hebel isagaa isxoreeyay maqli jirta markii maaragtay uu wacdara muujiyey. markaasaa macallinku wuxuu yidhi mar walba adiga ayaa kooxda la soconaya. marka ninkan marka waxa waaye xuuti way isa soo saareen, xogaagii gantaalaha loo geeyey iyo xogaagii drones loo geeyey, siday taa ugu shaqeeyeen. hadda marka waxaa leeyahay Iiraan maadaama ay og tahay inaysan Israa'iil iyadu marnaba isdhaafayn, waqti ay noqotaba la isku laaban doono, ayaa Iiraaniyiintu waxay ka fakarayaan leeyahay in halkaa loo dhigaba warshad samaysa gantaalaha iyo maaragtay iyo samaysa droneska in loo geeyo oo halkaa waxooda ay ku habaystaan.
haddii xataa baddu ay xiranto laysla holco in waxooda ay soo saartaan israa'iil iyo maraykan nagta meesha uga wadaan. sheekaas marka yaa sheegaya, yaa soo helay xogtaas waxaa soo heshay dowladda Yaman, dowladda la yiraahdo oo calan degan oo caalamku yiraahdaan iyadaan aqoonsanahay, xuutiga ma aqoonsanin. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay, jaridda la yiraahdo Sharqul Awsat waxay leedahay xukuumadda Yaman waxay ka digaysaa in warshadaha sawaariiqda iyo droniska Iran in markaa loo raro dhulka ay xuutiyiinta maamulaan. u fiirsada, wasiirka warfaafinta dowladda Yaman ayaa arrinkaa sheegaya, waa ka walwalsanahay Iran inay halkaa warshad geynayso oo balastiga oo maartay gantaalaha samaysa iyo droniska iyo meesha in marka loo geynayo ayaan ka walacsanay leeyihiin. qorshahaas isaguna waa arki doonaa wixii wara oo kasoo kordha. arrinka aadka u xisaab badan ee maanta barnaamijkan idinkugu soo gudbinaya wuxuu yahay sheeko la yaab leh jirta. ninkii Trump ahaa wuxuu rabaa leeyahay lacag baada oo billions dollar inuu mar kale ka qaado nimankan khaliijiyiinta ah. wayaab ninkan Trump la leeyahay nin naxma ah. carabtan waa fiiriyay كان مركو يرا مديدي كران قاعدة وشبان هذول عكتن ما أنت لا اكتهي محوص الربا إنه كسمة وحياة لياب كله وحكم ذا وحقور ربا إنه كسمة أيا لياب له هذول مركا أنا دي تسو ورباهين تقاركيد بأريكا وجه الليان جرال كل يرادو رأيه اليوم وحسوح جنا يا تلفزيون كوين أمريكان كل يرادو CNN وحوليه ترى وحو كفكر يا هذا inuu magdhowsiiyo Iran barnaamijkeeda nuclearka oo markaa nabadgelyada ahna uu kala shaqeeyo deegaanka Fordo in la sameeyo. lacag waxa ku baxaysa 30 bilyan oo dollar ah waxaana laga qaadayaa khaliijiyiinta 30 bilyan oo dollar ayaa ku baxaysa leeyahay. Mareykanku markuu wuxuu rabaa Iran inuu la dhiso nuclear nabadgelyo ah aan idin la dhisayna u leeyahay. midkii hubka looga shakisnaa ee waxaan waa iska dhaafaysaan magdhawaadi siinayna meelihii leedinka burburiyay iyo nuclearkii iyo meelihii kale lacag magdhawaadi siinayna 30 bilyan oo dollar qaata wixii leedinka haleeyay hawshaana nabadgelyo ka dhigta nuclearkiina nabadgelyo ka dhigta markii hore Soomaaliland lahayn nabadgelyo noo ahaana nabadgelyadiina ka dhigta ee xaaladda dejiya bas ee maartay arrinkan meesha ku damiye Israa'iil marka la ku laabanina Israa'iil baqaysa waxa leedahay nimankan way nagu maqayeen saan u gaadnay markii hore ayay rabaan inay noo gaadaan shiinahay dhaxtaagayeen hubay keensanayaan maanta oo dhan waxbay diyaarsanayaan annaga noo soo socdaan ilaa marka ninkii Trump marka maslaxayna wuxuu leeyahay waxay leedin ka burburiyay waa leedin sameeyna fitnada iyo waxa kan naga joojiyay iyo nuclearkiina nabadgelyada samaysta hawsha marka waxa sheegay telefishinka CNN marka lacag waxa ku baxaysa leeyahay 30 bilyan oo dollar khaliijkuna ka soo qaada way madidi karaan wuxuu leeyahay Iran lagu maslaxayna keena lacag hadii kale wallahi Iran habeenkii waxay dhigtay waa weydeen carabtii oo dhan isku dhaxyacay diyaaradaheedu wixii oo dhan isku dhax inta habeenka kaliya inta ay diyaaradihiin oo khasaareen oo adigu khasaarteen waa imis lacagta bilyanis waxa meesha ka dhacay marka hadii dhowr habeen ay ku celin lahayd maaga khasaari leedahay waxaas ma ahan lacagta isku soo daruulay lookii qalijiita wallahi istawaraayst marka baaddaasa sugaysa marka sida warbaahinta Mareykanka aad arkaysaan ay arrinka ka hadlayaan haddaba waa arki doonaa wixii warar soo kordha laakiin markan waxaan u gudbi doonaa hadii Allah idmo qaybihii dambe ee barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa Erdogan iyo Trump oo isku arkay shirkii NATO ayaa si weyn uga wada hadlay sidii loo dhameyn lahaa dagaalka Ukraine haddaba wadanka Turkiga ayaa la isku balansaday Putin, Zelensky, Trump iyo Erdogan haddaba arrinka miyay wada ogolaan doonaan sidee wax u dhici doonaan qaybta dambe ku faahfaahin doonaa marka la waxa naga xasuusa barnaamijkeena qisooyinka cajiibka ah ee qisooyinka nadaara laba channelkeena qisadii jimcaha ayaa ku jirta
la socda xayisiin kadib waa isku soo noqonaynaa. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya. haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba iminka waxaa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional, kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur'aanka hab casri ah online ah. maadooyinka ka baran karto waxa kamid ah qur'aanka kariimka, higaada, luqadda carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa. runtii wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta jimcaha qaybihii ugu dambeeyay ayaan maraynaa. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa kula kulmay shirkii NATO intii lagu jiray Trump marka wuxuu u sheegay, wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaan qabanqaabiyo kulan muhiim ah oo aan isugu yeerayo Putin iyo Zelensky. markii horeba wuu baaqday, Putin ay imaan, Zelensky waa tegay. marka hadda wuxuu leeyahay halkaa waa inaa adiguna timaadaa. marka Trump waxa leeyahay wuu aqbalay, wuxuu yiri haddii Putin imaanayo waa imaanaa, arrinkaa in la dhameeyo diyaaran waa. marka waxaa ka odaya sheekadan la leeyahay wax isku soo habeynaya ninka la yiraahdo Erdogan. jariirada Sharqul Awsad waxay leedahay wuu ogolaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu ka qayb galo wadahadallada nabadda ee u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka, kaasoo Turkiga la filayo inay ka dhacaan haddii buu yiri uu ka soo qayb galayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. marka wuxuu leeyahay Putin hadduu imaanayo anoo Trump waa imaanaya. hawsha marka si dagaalka iyo hawlihiisa loo soo afjaro ayaynu iyadana ka shaqaynaynaa. haddaba waa arki doonaa dunidii oo dhan dagaal iyo qubqac iyo qarrac ayay noqotay. marka maray xasilooni iyo nabadgelyo bal ku soo dabaalanto aan aragno. barnaamijkii ugu horreeyay waa naga intaa. mar kale waxaan idin leenahay asxaabay jimco wanaagsan meel kastoo aad naga daawanaysaan. qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkana waa soo gabagabaynay. waxaan mar kale idin xasuusinayaa channelkeena kale qisooyinka Nadaara 2 inaad booqataan si aad qisooyin cajiib ah kuwii ugu dambeeyay aad halkaa uga heshaan. intaan mar kale kulmayno asxaabay, nabadgelyo.